sheeko aan hore ii soo martay oo cajiib ahay oo annaka marka sheekh waxaan ula tagay sheekadii sheekh Abdulaziz Ali Sheikh waa muftiga magaalada Sacuudi wadanka Sacuudiga ee mufti caam sheekh markan qisadii u sheegay wahadli kari way wuxuu ku waashay la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah allahumma la tuftinna allahumma la tuftinna sheekadu maxay ahay sheekadu waxay ahayd annakoo joogna magaalada la yiraahdo Calgary waa magaalo ku taala Canada oo sheekh waa ku taala meel la yiraahdo Alberta ku taala wani imaam masaajid ka ahay ayaa gabadh baa ii timi Kanadiyada waa gabadh Ilaahay subhanahu wa gabadh isa soo qurxisay waa gabadh cad timihii soo marisay ama timo dahab leh mariyo ku dhajisan soo xiratay mariyo gaagaaban iyo kaba dhaadheer isku soo taagtay gabadhii markaa way ii timi waxaanu haynaa markas la yiraahdo Islamic Information Society of Calgary waa markas alfanaar lamida oo dadka gaalada doonaya inay islaamka wax ka ogaadaan aanu u furay gabadhii baa ii timi gabadhii markaa waan ka foorarsaday gabadhii bay igu tiri islaamka ii sharax islaamka ii sharax shantii rukun ee islaamka buniya al-islaamu ala khams ayaan u bilaabay ma eegayo waayo gabadhii mafaatinkeedii oo dhan bay dabada soo dhigtay mafaatinkii Ilaahay siiyay oo dhan bay dabada soo dhigtay mana eegi kartid gabadhii marba waxay tiraahdaa that is beautiful waa aad bay u qurux badantay Ilaahay baan ka hadlaa subhanahu wa ta'ala tawxiidka inuu Ilaahay keligii yahay inaan cid kale la caabudin inaanu Ilaahay halka inala joogin inaanu Ilaahay inagu dhex jirin inaanu Ilaahay inaan lahayn inaanu Ilaahay reer lahayn inaanu Ilaahay way ka mabsuuba waxay tiraahdaa is so beautiful aad bay u qurux badantay diinta nabi Muhammad iyo icjaaskiisa iyo caalam al-ajinna iyo embryology-ga iyo inuu nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quraanka loogu sheegay maraaxil ibn aadanka loo sameeyo iyo maraaxil ku ji waxa dhamaan u sheegay aad bay ugu mabsuud marka shantii rukun u dhameeyay ayay tiri I have a concern warwar baa igu jira warwarku waa maxay waxay tiri qofkan ku hortaagan qofkaad moodaysid ma ihi waxay tiri anigu waxaan haan jiray nin gabadh baan isu bedelay oo waxaan la baxan beertay waxaad arkaysid Ilaahay wuxuu qalabkii u siiyana waan iska zuulay oo waan iska gooyay gabadh baan ahay Ilaahay dambiga may dhaafaya Ilaahay dambiga anigu markaa waxaan naxdin ayaa talab ma eegta mise waa dambi illa ma gabadhna maaha ninna maaha naagna maaha imika ma kor baad u eegta oo ba wajigaad aragta mise waa dambi miyaad ka jeesata maxaad u sharaxda haddii ay muslimto xagaan geeya ma xijaab aan u xidhay dumarkan u geeya kowdha mise waxaan ilaahadaa khamiis soo xidho raggiisa soo dhex taga adigoo intan xambaarsan Ilaahay ku barakeeye haddii aan dumarka u gudbiyo haddaan idinku raado waa dumarkii nin baa la tukanayay way dilaysaa haddii aan halkan aan idin soo dhex joojiyana khushuuci daaqadu ka boodaya horta u kaadi baan ku ori marka waa arrin weyn waa dambi Ilaahay laga galay subhanahu wa ta'ala khalqigi Ilaahay ku siiyay subhanahu nin buu ka dhigay nin buu ku abuuray qaraar baad gaadhay inaad dawooyin isku mudid inaad waxyaabo isku beertid inuu aaladii Ilaahay ku siiyay aad zuulziyad ka goysid inaad meel kale waxyaabo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu talinay ma dhex gashay bal u kaadi Ilaahay wuxuu ii hawl yareeyay in Sacuudiga tago marka waxaan la kulmay Abdullah Xuqayl wadaad la yiraahdo aan waa sheekh iige muftigii uu geeyay مفتي بان كل يا فضيلة الشيخ
حالد سدا يسدا يسدا ساجرتا فما الحكم وذاك انت نكفي لي انه فتوى السيو وضوخي مركاسون مرة رد الله عليه قال أيعصي الله بهذه الطريقة ومساس إلهي الدم اللي وقلها إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله مركاسون مرة يقسي تشيستا مركاسون يغنور قريب وذاتك هل كاسم أكفر يا شيخ وحنقول يا شيخ قفك السوغية كان إذا كنا قنيا افتينا في المسألة شيخ مركا يا أمس وح الله لي يقول إلى هذا مركا الله الله وح إلى هذا لا حول ولا قوة إلا بالله يا شيخ قبل ما ين مسلم مسجل بين كدينا لا حول ولا قوة إلا بالله مركا سأقول يا شيخ أزيدك من الشعر بيت أن كوسي كرية إن وأنا جوردنا محين صمينا ما كان سوري إنا لله وإنا إليه راجعون مد بفر يا شيخ قل له يكتب فنجعلها أو نضعها أمام اللجنة فتوضها سوقرة وذاتكها سوقرة وحين أقود بيننا وإن قوينات معصية داسي فردقي مركا وحي ميشة تشوغي أوردن حنششق ورمية دعوة ما يلهب السؤال الدنب لو قال من معصية دا وحن درمي مركا مجلس كان إن دنبيغا إلهي لغا غلاي إيه كندا لغا غلاي إيه قف غاري او كغلاي إنو تابتي ودادك halka jooga waxana ii cadeysay marka wadaadkan ii hor fadhiya inuu dareen iimaan wadnihiisa uu ku jiro inuu wadnihiisu marka aanu aradin oo aanu asaguna angegnayn inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala iimaankii ku daayay oo iimaankii ku abuuray حكم جوارد محاي كجارد علماء هرتش علماء ويسكو خلاف وي شيخ آل الشيخ يا عبد الله المطلق وشوي مركا يا الحقين إن يا الغديان أنت بوي شوين تنا رحمهم الله أنت كنا حفظهم الله ويوحفت ودا ويسين كرواية وحنوت جي مركا شيخ الله هذا عبد العزيز إن الفوزان عبد العزيز الفوزان وحي سيهين شيخ صالح الفوزان وانا شيخ نلتشوغي مرايكن كشنص النضاد واحوال الغرب يا مشاكل كالغرب كتشيره ام شنص النضاد لا دحنولا مساله دي marka wuxuu yiri waxa waajiba inay gabadhani sidii uu Ilaahay u abuuray isku celiso oo marka waxan ay isgalisay iska saarto in isku muddo hormonaadkii loogu talagalay in lidhukur oo dhukuriya marka male hormones bay dhahdaan marka raganimadii waa inay soo celisaa marka irbada isku mudaano irbadahani gartimihi buu ka jaraya codkii buu ka dhigayaa cod naacim oo soft ah in way isku mudaan hormonaad untawiya marka waa in hormoonada dakari isku muda oo asligiisi ku noqda waxay qaadanaysaa muddo dheer oo sanada ah iyo lacag fara badan marka loo doono marka aalad dhakra loo doono ila aalad unta wamka ayu xambaarsan yahay gabadhu iska dhiga marka waa nimada lagu soo celiyaa mar labaad waxaan muddo qaadanaysaa fadilati sheekh muddada maxaa la sameeyay kayfa yataamal ma'a hada al-insan سيديبان ولا معامل له مركا وحي في الوقت الحاضر وقت حاضر كا وحي أسلق وإسينو حكم شرعي وأبنه قفك بين آدم كوا صدح وذكر وأنثى يخنثى صدح داوي أما دوانين أما وقبر أما واللباب مركا وحي يديك لباب كي مجلين كرو إلهي سأمو أبورين أيضا يسكت تواسق يسكت لقي لكن بحكم الظاهر كي هدي قفك الدنيا إنه مساجد يمادو ولا بد إنه مساجد يمادو وإنه قسم الدمركة لو بيريا مركا قسم دمركة وإنه لو بيريا هدو مركا عدك وصون نقضو أو أركو مركا إنه
وسوق جليو قسمي أما نوعية الرجولية أما نوعية الرجل وسوق جليو مركا وينس مركا حق الدمركا لوسو وريتي وحن مغلي وحن مالينا يا حق الرجع عفوا وحن مالينا يا إن يكون عليه مسألة ساسو كلاء إن النمسا أما سويسرلاند يموت السوير ما بكل عليه إمامكم مركا وحكر لجاي إمام كاسي حكم الخنثى لكن الشيخ الفوزان وحول حكم الخنثى يا أيضا إني وذات كان الله هذا سلمان عودة حكم إن اللوع ديو أصل جيس يقف والله أعلى وأعلم.